الرحمن الرحيم انت aan ku dur istaagin gurmad labada dhinac isaga imaanaya oo dhankaas iyo nimankii abargidil gurmad fara badan oo soo baxay nimankii saacad halkan leelkasa lafkiisa ragii dani buurta uu saaray iyo leelkasi mudug deganaa iyo gurmad noocyadiisa kala duwan ay helayaan intaan muuqaalka ugu dur istaagin qodobkayga labaad waxa ah magaaladii waxa la galay ceelbaraf ahayd waxa galay qabiil ma gelin shabaabna ma gelin dawladda federaalka gashay way joogeen cagta la mariyay qodobka isagana si qoto dheer inta kugu dul istaagin waaga yaraa waxa maqli jiray hadda kor mi jiray ay wiilay aqli ma jeerteen wada saaxiibo waxa aslay aqli ma jeerteen ku dadka ay sheegaan waa maxay ma jeerteen ku dadka irmaan ka aqli badan yihiin meesha wax ka socdaan oo meegaagta la dhaho oo Puntland oo muddo ka hadlayo oo nimanka leelkasa ilaahay ku beeray darbi daarood oo tolkayaga atanada maalinta iyagu xabad qabsato oo waliba gurigooda xabada ugu timaadana waa leelkasoo isku filayay ilaahay maqaadirtii waa garniganaya hadda wax ka khalday yaqub waxa ka khaldanay anu colaadna ma horiyo waa taqaanaa nin odaya ah laakiin waxa jira waxa in xaqiiqda laga sheego xaaladda sida dawriyaad in loo faydo waxa dhacday haddii maanta gaalka ay hadda saacad soo weeraro oo dhanka baraxle intuu xabad kaga soo bilaabay dhanka kale ku geeyay laba dhaaya ma jeerteen oo isdifaaca qabiilada kala ma dhahayaan wiilka warsangeliya bartaas ku dhimanaya wiilka dhulbaanta bartaas ku dhimanaya wiilka leelkasa isagoo barta difaacayo ku dhimanaya wiilka carab saalax isagoo barta difaacayo ku dhimanaya yaa daarooday ba arintu tagaysa haddii laakiin guryaha leelkasa jicbuur iyo saaxa qurun iyo meegaagta ee xabadi ka socoto waxa weeye markaa tiraa war Puntland tamay dadkan difaacdo iyaga ila kursiga ku fadhiye ama ninka daniya meeshan fadhiye ma jeerteen mu arintan ila waa gurigiisa waxay wax ka socdaan iska dhaaf dadkii isaga wax la dhistay oo la dhashay in deegaankooda xabad qabsatay waxa uu mas'uul ka yahay wiilka madhibaanka iyo wiilka jareerka iyo wiilka hawiyaha iyo wiil kasta oo ku dhimanaya oo Puntland ay wax ku soo gaaraan buu mas'uul ka yahay iska dhaaf kuwii wax la dhistay oo canshuurtooda meesha ku fadhiyo xoolaha cunay marka waa dhibaato waa dhaqan cusub oo Puntland ku cusub maalinta kuwii Puntland wax la dhistay ee daarood aha ee xabadu qabsatay waxa weeye in ama reer hebelow lagu soo gurmado maalinta ay qolada ma jeerteenka ay xabada qabsatana inay kuwaan kala u soo hiiriyaan anu ma fahmin aqliga horta waa rogrogay waa eegay waa sukay qaban wey shalay beed markii suldaanka warsangeli gurigiisa ergaaba lagu haystay kuwa waxay ku doodayaan wadoodu tahay nin ergaaba dadka jooga nama rabaan way gudoomiyaha baarlamaanka u siinaysaa warsangeli ma iska deys leelkasa duusa ku rabin wala cashuurtiisa waxa ku fariisaa oo u sheeganaysa ma marka hore iska qaad hadda galmudug kaaga biira waa qaylinaysa waa ayaan dara lixaad kale intaas furfurashadii bay ahayd iyo wixii aan fahmi waayay waxa soo baxay gurmad fara badan oo ka soo baxay haddaan ku hormaro dhanka galmudugta nimankii curadkii karanle oo meesha deganaa ciidan horena ka joogay gurmad baa hadda ka yimi ka soo socda nimanka waxa ugu gurmad badan saaxiibaday reer xaaji saleebaan oo runtii haddii booskaas iyaga habargidil ugu jiraan leelkasa nimanka la dhaho reer noocaas kale ugu jiri lahaayeen amaanta dan iyo dibre iyo qashin iyo qurun loo baahdeen iyo qaabdaradaas aan loo baahdeen waa soo bixeen 14 gaar kaga soo dhaqaaqeen horena waa u joogeen meesha oo dagaalku ku jireen waxa kale oo lii sheegaya gurmad kale oo guutadii koolataraad ka soo socda iyadana waa lii sheegay gurmad fara badan oo isugu jira hawiye noocyadiisa kala duwan oo xataa ku jirto jifida wacaysle ee galmudug degta baa meeshii ku soo wajahan ahayd jicbuur warka ninkii dhayarsanayo caaw meel ku qoro gurmad culus baa ku soo wajahan meesha darbaaxadii nimanka maanta ku dhacday daraad ku dhacday sanadka ku socotay in la iska caabiyay ceelkii jicbuur la qoday waxaasoo dhan adigu nimankii waa sabri waayeen duulaan bayna soo qaadayaan colaadan inta la moodo ka qoto dheeraanaysa halka leelkasa waxa gurmad ku soo baxay arintu waaga hore dhalinyaradan la hadlaya waliba kuwa leelkasa la hadlaya ma jirto wax la dhaho xirsi muumin iyo muumin aadan iyo muumin xirsi iyo cali iyo xirsi ma jirto baashaan waxay maraysaa leelkasa iyo hawiye ama leelkasa iyo habargidir ama leelkasa iyo hiraab bay tegaysaa laakiin midda meesha taalla waxa ay tahay waxaan u mahad celinayaa wiilasha ka soo degay buurta oo dani beenta uu sheegay ula shabaab baan la dirinaynaa iyadoo xaafadahoodii iyo gabdhahoodii iyo wiilashoodii xabada ku socoto
وهم هاد علنا إني وحفهمين وسلامات وحفهمين وأي صور عن صدين وهم هاد علنا حلا يعني حلو اللي يدين بأنا ودتكين يدين بأنا عين شرينا خلط بعد كتكتين ماشي واحد مرة يثبتوا لنا النول بين حافظ يدفع له غير كستنا هو بقطه ماشي الدولة ضدك وحكا علين كرتنا ما تشوكتو runta markii laga hadlo dawlad wax ka celin karta oo ii sheeg maanta ku difaaci kartana meeshaan ma joogto runta markii la sheego meel lagu baaba'ay weey xataa Puntland iyadoo aan dagaal qaadin bay nabadeynta ka shaqeyn kartaa laakiin diyaar uma ay ahaad marka wiilasha waa mahad celinaya leelkase ee ka soo baxay meeshuu dani lahaa al-shabaab ee qashin iyo qurun baa lagula diriraya ka soo baxay waa mahad celinaya waxa kaloo me goobta iyaguna gaaray ilaa iyo 9 gaari ilaa 10 gaari oo leelkasi mudug nugaal deganaa ah oo la tirkoodu ciidamada kale ee Puntland ku kala jiray hadii ay joogeen meesha leeyahay ilaa salinta ragii ku maqnaa ama deegaan ama meelaha kale ragii joogay iyaguna waa soo ruqaasadeen oo iyaguna xaqii bay u soo socdaan gurmad noocaas oo leelkasa bas ah baa nimankii leelkasa soo gaaray halka nimankii ma jirteen ay taagan yihiin annaga hadii la soo weeraro istifaacile adigu deeshaatiga dawladda ku fadhida dadka khaldin leelkasa shaati dawladda ku fadhiyo dadka been ha u sheegin leelkasa nimanka habar gidiro kala ma aha oo Saleebaanka dawladda ku fadhiyo oo u taageeray ma aha adu marka waa baqaysa galkacay adu baqaysa marka laakiin saacad duwalkan ku soo jabo madax gelin waayo ha nabad ma yaqaan saacad galkacay ka soo dhax bilaabaya marka hadii marka tolaay waxba daniya isku boojeen argagixisay Puntland argagixisa ma joogto waa la yaqaana waxaan dani mashruuc buraan caalamka kaga cuno wuxuu rabaa inuu adduunyada oo lacag kaga helo rabaa wuxuu rabaa waxaan meesha oo leeyahay Xashim Maxamuud baa ka fiicnahay ana la dagaalanka shabaab ku fiican gaaladu waa ogtahay Puntland al-shabaab joogin gaaladu ciyaal ma wadani khaldi karo anaguna ciyaal ma leeyahay khaldi karo meesha adeer waa Puntland difaac hada difaacaysi kuwina u nacamleynaya adeer waa meesha difaac ama dadka nicda kala tag نعم كانت وقت الدولة الفدرالية وغيركين هاي مالا عيال برف لعبوا إلى عسكري عسكر قضب كاس وجود بيها قضب كان يقدها لا الكسر عليه وريدك استدفاع خير الله ينسيه إنك أستغفر عليه وياش أبوتنا الله دانا كتشر كل حي ورسنجلي وجد أنا يس تاسوك على كل عينه وقرينا إنسان بالقيسان أو هذا ما قال عنه على وقر قرية قانيو إيش إله ربي ما عمرك ودي من دليل إبراهيم بس كل شيء تبع الوقر هم قلنا هذا ماشي الدفاع أنا قلت هذه شيء يعني مع صهري ماشي على البرف هاي ماشي على البرف لو عايز كلها هي حواله لو يروح والله بقى نمن أبقى لكدرين وكالله وراح والله أنت الشيخ شريف با دبضة كول عاقية وفشلين بركة أمني لقى شقيني إنتاس يا خوارجتي لقى عد كهذي يوش يحوق الدلك الصومالي إنك عن لو قاضه يضو هيب لقى ورنيو وعياريه الشيخ خوي الشيخ بركة والو فهمي ماشي على البرف هاي بما أنت اللي تجي برجع على البرف اللي تجي الهليكوبتر با وحي بالقوقر حبسي وعلى عليه تولد شوقي وقري قادي كري وهل كري دولد فدرالك waxay ku gurtay xabsi wataas dawladnimada marka dawladdu markay ku difaacayso ama dadka meesha degan ay wax kala dhax dhigayso wata dawladnimadu laakiin dawladnimadu ma aha markii sida daniyo kale markii halka wax ka socda inay isboojeyso ma aha halka waa ku bogaadinaya dawladda federaalka in labada beelood xawaale iyo abgaal inay nabad dhax dhigto in wixii akhlaaq xumo ah saas kale loo weeraro in la xirxiro waxaas oo dhan وكبوا قاعدين بيج كان مرة بحقيقة أتكلم عن سايشة كوهاي لايكتا أنا لوفك بهلاي قدرت لايكتو مقال كمال الربيع ساعة أنا يعقوب سعد أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.